haddii aad tahay qof islaam waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan sheer garaysid iyo inaad u duceeyid dadka islaamka oo aad tiraahdo ilaahu islaamka awood u yeel isla markaana gaalada jebi muuqaalkan wuxuu niyad-jeb u yahay dadka gaalada sidoo kale wuxuu sharaf weyn u yahay dadka islaamka ah ninkan gaalka ayaa aad u jeedaan waxa uu gubayaa kitaabka ilaahay diinteennii islaamka asagoo ku nacaynayo dadka islaamka waad u jeedaan sida uu gubayo balse qof islaama ayaa garaacaya isla markaana dhulka ku kala tuuraya islaamku waa dad aad iyo aad u sharaf badan haddii aad tahay qof islaama oo daawaday muuqaalkan isla markaana sheer gareeyay aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan kaa codsanaynaa inaad page-kan Waxmaqriyo TV aad follow dhahdid isla markaana aad like saartid waayo waxaan soo wadnaa muuqaalo kale oo noocan oo kala ah oo aan ugu talagalnay inaad diinta ku difaacno si aad noogala qayb qaadato waxaan kaa codsanaynaa inaad page-ka follow gareysid isla markaana aad like saartid aad iyo aad ayaad u mahadsantahay islaamku waa dad aad iyo aad u karti badan isla markaana aan ogolayn in lagu soo xadgudbo diinta islaamka lana gubo kitaabkeena qaaliga ah ninkii waxaa ku soo baxay gaala badan oo boolis u badan laakiin ma aanu ka baqan islaamku waa dad aad iyo aad u sharaf badan islaamku waa dad geesiya saas darteed waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay qof islaam inaad muuqaalkan sheer garaysid si uu gaalada ugu noqdo bahdil iyo jab aad iyo aad weyn maadaama ay arkaan sida loo galayo markii ay ku soo xadgudbeen diinteenna islaamka runtii dadka islaamka waa dad aad iyo aad u fircoon isla markaana aan haba yaraatee kan gaban dadka gaalada ah ee ku soo xadgudbaya diinteenna adinkana waxaan ka codsanaynaa inaadnaan baqaylin sheerta oo aad sheer garaysaan si ay gaaladu u arkaan sida loo galo marka ay diinteenna ku soo xadgudbaan sidoo kale ay dadka kale dhiirigelin ugu noqoto waa dadka islaamka ah oo ayaguna aysan uga yeelin inay maalin kasta kitaabkeenna ama diinteenna ay gaaladu ku soo xadgudubto isla markaana ay ku samayso waxyaabo qaladaad ah waayo haddii islaamka oo dhan uu sidatan ahaa lahay naguma soo xadgudbi lahayn gaaladatan balse markaan anagu cabsanay markaan anagu dareemi weynay ayay sabab noo noqotay inay qof walba oo gaal ah uu ku soo xadgudbo muuqaalkii kan ka horreeyey wuxuu ahay gabar gaal ah oo ku xadgudubtay kitaabkeenna isla markaana dadka badan oo Soomaaliyeed ayaa cambaareeyay sidoo kale kana waxaan ka codsanaynaa inaad sheer garaysaan oo aad si weyn weliba u sheer garaysaan maadaama uu ka duwan yahay muuqaalkii hore